السلام عليكم وعليكم السلام دمان asxaabta qaaliga ah waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan kulli u jeedaan wajigayga waxa ka muuqdo daal aad u fara badan waxa sabab bal isweydiin marka su'aashaas oo ku magantiina filaa jawaabteeda haddii aan idinkaga jawaabo waxa waaye waxaynu soo aadnay yacni ka alla in lagu galaday kuwooda ugu qaalisan habboonna in dee markaa laga faa'iidaysto kuwaas oo ah beeraha maanta waxaa weeye kamida beeraha afgooya ku yaallo ayaynu soo aadnay booqasho ahaan waa ka soo moos qaatay adiga in cabara dhab ahaantii waxa waaye waaynu soo lugaynay adeertaana socdaalku dee intaan kuma uu inoo sii dhiman yahay hadduu ilaahay raalli uu ka noqdo marka waxaan leeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed waddanku adinku idin baahan yahay xaqiiqada markii laga hadlo waddankeena waxa ku duugan nimcooyin dhab ahaantii aad u fara badan kuwaas oo laga rabo in laga faa'iideysto marka yacni siyaabooyin kala duwan ayaa marka looga faa'iideysan karaa yacni nin walbo niyadiisa dhoof ku jiro qorshihiisu yahay inuu waddanka ka tago walaalo waddankaada ku baahan laftii nimca taalo waxa weeyaan waa kaliya qof fikiro oo wax ka soo saarto u baahan yahay iyo dulqaad marka absolutely marka waxaan la idinka rabaa in waddankeena aad iimaansataan waxaa la idinka rabaa in waddankeena aad aamintaan waxaa la idinka rabaa in waddankeena aad ku kalsoonaataan yacni waddanka shisheeye waa hadda qorshay hoose ama niyadda kaaga jiro walaalow nifacaa soo saartay waddankaaga inaad soo saaratid shidatid kala kacsatid beeratid qulxsatid maxaa ku diid dabcan waa waxaba marka waxaan idin leeyahay awayaan waa ala shaqeysto waddankii shaqo taallaa marka fikiraal isdheer yahay macnaha ma fahanteen marka nin walbo iyo maskaxdaada nin walbo iyo dadaalkaada nin walbo iyo kartidaada halkaas ayaan ku gabagabeynayaa waxaan isku ognahay waddanka shaqo waa taallaa ala shaqeysto xoog yala baqiilin dalka waa dalkeena wixii aagilisa ka sameeyay hadda ninka u jeedin waa ogaaskii oo nimcada Ilaahay ku faraxaysanayo kaamirmaankan waa maxamed xasan aad ugu salaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh